mar walba oo aad ku sii talax tagto daawashada quruxda dhismayaasha iyo farsmagaalka caasimadda Muqdisho waxaa mar qura ku niyad jabinaya goorta aad hoostaada fiiriso waayo laba muuqaal oo aad u kala weydaaran ayaa ka jira dusha sare ee muuqaalkeeda iyo joogga hoose ee dhulka oo ay ku soo dhaweynayaan dhiiqo qashin iyo wasaq joogto ah waana mushkilad kala dhantaalaysa quruxda iyo bilicda caasimadda leedahay laakiin haddii hal tusaale oo wax ku ool ah laga soo qaadan karo dal iyo magaalo madaxdii oo Afrika hormuud uga ah quruxda iyo nadaafadda waa waddanka Rwanda iyo mashruuca ama ololaha qaran ee loo yaqaano Umukanda ku dhawaad 30 sano ka hor Kigali waxa ay goobjoog u ahayd dhimashada 1 milyan oo ruux gowraca iyo dhibaatooyinka aan yareyn ee xilligaasi jiray xitaa saxafiga Mark Doyle ee BBC-da ka tirsanay ayaa ku jahawareeray xogta dhimashada maalinlaha ah balse sanadahaasi mugdiga ah kadib hadda waxaa loogu yeeraa Singapore Africa kaliya kuma noqon deeq caalami ah ee waxa ay heshay madax si daacad ah caasimadda uga adeegta iyo dadka walaalaha ah ee reer Rwanda oo gartay in ay muhiim tahay dhisidda caasimadooda ka qayb noqoshada dadaalka lagu dhisayo dalka Rwanda iyo in la wadaago heybta dalnimo dawladdu waxa ay jideysay mashaariic kala duwan oo marba xoog lagu saarayo horumarinta bulshada iyo deegaanka si loo simo deegaanada kale ee dalka Umuganda ayaa kamid ah mashaariicda lagu beegsado mashruuca horumarineed ee deegaanka micnaha casriga ah ee Umuganda waxaa lagu qeexi karaa howlgal bulsho community work ama iska wax u qabso dhamaadka sabtida ugu dambeeyay bil kasta bulshada ayaa isugu timaada si ay u fuliyaan howl gaar ah oo danta guud kamid ah tani waxa aalaaba ku jira horumarinta dhismaha jidadka koortaga iyo ilaalinta fayadhowrka deegaanka. Did they give you money to participate in Umuganda? No one who does pay me. No one paid you to participate? Yes. So why do you have to do it? I have to do this because I'm the citizen of the country. So Thank I you. have to do this to develop my country. da'da muwaadiniinta Rwanda ee u dhaxaysa 18 jir ilaa 65 jir ay waajib ku tahay inay ka qayb noqdaan Umukanda xitaa dadka qaxootiga ku jooga dalka ayaa lagu dhiirigeliyaa inay ka soo qayb galaan maanta 80% dadka reer Rwanda ayaa ka qayb galaya mashruuc biladka Umukanda natiijaduna waxa ay noqotay in lagu guuleysto dhismayaal badan oo danta guud ah kuwaas oo maanta loogu adeego muwaadiniinta tani waxa ay dhalisay in caasimadda Kigali loogu yeero Singapore Africa taasi oo ku suntan amni iyo nadaafad kaliya farqiga u dhaxeeya Muqdisho iyo Kigali waa uun labada maayar ama duq magaalo oo midna u horseeday guulo weyn midna hoos u dhac ogow tagtada xun ee naweydaratay kama dhigna in timaadadeenu mugdi tahay wadajir ayaan uga qayb qaadan karnaa horumarinta magaalada Muqdisho fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada mahadsanid